caleemasaarka nabadoon Maxamed Xasan Garmeele oo lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaal dhaqameedyo matalaya deegaanada Koonfur Galbeed haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale xubnihii halkaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay nabadoon Maxamed Xasan Garmeele inuu ka shaqeeyo nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed nabadoonka guud ee beesha Dabruube Maxamed Xasan Garmeele ayaa maanta meeshan lagu caleemasaara magaalada Muqdisho dhammaan waxaan u sheegaa odayaasha dhaqanka qaas ahaan dhaqanka dadka hogaamiya waxaan leenahay wada shaqeyn wanaagsan soo dhawaada waxaan jecelnahay inaad la shaqeysaan nabadoonka cusub ee beesha Dabruube guud dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukuumadda Xasan Cali Kheyre golaha shacabka aqalka sare gaar ahaan dowladda Koonfur Galbeed wasiiradeeda xildhibaannimada Koonfur Galbeed waxaa ka codsaneynaa nabadoonka beesha Dabruube inay ula shaqeeyaan asla shaqeeyo codsigaasna waa jeedinaynaa nabadoonka waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo nabadoon oo cadaalad oo dhexdhexaad oo macayada ka shaqeeyo horumarka dadka iyo iscafinta iyo ismusaamax inuu ka shaqeeyo waxa la rabaa dulqaada laga rabaa waa lagu caynaa candhuufa lagu tufaa waa lagu nijaasaynaa dulqaada laga rabaa annaga waxaan soo dhawaynaynaa anigoo ku hadlaayo magaca Koonfur Galbeed xildhibaanadeeda iyo dadka maamulkaas ka tirsan oo dhan nabadoonkan la doortay oo beesha Dabruube ay keentay inaan waa aqbalnay waana la shaqaynaynaa waan soo dhawaynaynaa inuu nabadoonka cusub Maxamed Garmeele inuu la shaqeyn doono lana tashan doono nabadoonkii guud ee hore xaaji Ibraahim Maxamed Barrow waan soo dhawaynaynaa xaaji waxaan leenahay wax badan baa soo shaqeysay nabadoonka ku bedelay Maxamed Xasan Garmeele waxaan rabnaa inaad tali tusaale siiso oo aad soo dhawayso nabadoon Maxamed Xasan Garmeele oo la caleema saaray ayaa mahadcelin kadib sheegay inuu waqti badan gelin doono isu soo dhaweynta dadka Soomaaliyeed si horumar loo gaaro dib u heshiisiin amarna la ilaabi karo maadaama aan dagaal ka noqono oo wax walba aan sameeyay waxaan taaganahay inaan dib u heshiisiin aan wax ku raadin gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose oo dagaalada iyo burburka ay hagaardaamiyeen waxaan leenahay odayaasha dhaxda oo xirta dib u heshiisiin aan laga daalin Muxidiin Macalin Cabdulla warbaahinta qaranka Muqdisho.